ما شاء الله. ما شاء الله. محمد جامع قبياي. صعب 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 صعب. هي النون صعب كا. ما شاء الله. آمين آمين. سقون نبضة صون نقضو. آمين. نبض قليو. كولات. هي النون. آمين آمين. صعبك صعبك صعبك. aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha xafladan qaaliga ah caawa. Axmed Jaamac Maxamed Gabiyaye Bursade saaxibka. waxaynu iskugu nimid caawa sidaynu horeba u sheegnay inaynu u sii ducayno oo aynu duco ku sii kabno kuna sii sagootino. ما شاء الله تاريخ ذي سؤال بيوديراني ساعة وحويا ومحمد جامع قبيا واني سمفلا ودت كordana ay wada yaqaanaan maanta halkan cid waliba way joogtaa laguma kala hadhin lama kala maqna taariikhdiisa wanaagiisa sharaftiisa karaamadiisa intaba waa laga hadli doonaa sida caadada hadaba halkan waxayna la jooga sheekheeni weyna al-Imam Sheikh Saad Muuse Roble waxaynu ku soo dhaweynaynaa oo aynu ku furaynaa aayado quraana oo waliba inoo raacin doono duco aad u qiimo badan. tafadal Sheikh Saad. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الإيجاد ونعمة الوقت ونعمة الحفلة. الحمد لله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا ليال إخيارتي إن شرفت له كراميسا caawa iskugu yimid xafladan qaaliga ah oo aynu ku karaameynayno, ku taageerayno, ku sagootiyayno walaalkeen maxamed, walaalkeen axmed maxamed jaamac miyaa Soomaali axmed jaamac ku sagootiyayno, ku sii dhaweynayno isaga iyo xaaskiisa qaaliga ah raaxa cabdulqaadir oo aniga sharaf gaara ii tahay oo gadaal ka sheegi doono faamiliga barakaysan. marka ugu horeysa anoo idinku salaamaya salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaa ka bacdi walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka oo min addiin ah. xafladina kasoo qayb gashaan waa min addiin, waa waajibaadka qofka muslimkiihi gaar ahaan ehelku isku leeyahay iyo qaraabadu. marka sidan oo kale ay timaado in la iskugu yimaado oo waxa la yidhi dee waxa weeyaan qof walba milgihiisa la siiyaa. marka intiina idaa dacaaka ajib baa la yidhi waa yani xaqu lmuslimi lilmuslim wa xaqu lqaraaba lilqaraaba ay isku leeyihiin weeyaan. وإذا دعاك أجب هدي وحور أحسن لو يرى ولا لك على مسلم كاي وليبا أهل كي قرابة أي كوي يران ومن الدين واجب هنا ذا أجيب تاي. إذا دعاك أجب وحق المسلم للمسلم واشن شن تعب ترسدا مركا ولا ريال أنت الناس كسوق قيبك الشيعة ويا أنت كم قرأت تاجر سن سود عينيس آد بأنيقو مجا فامليكا محمد iyo raaxo ku hadlaya aad iyo odayaashan khiyaarta agteeda fadhiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. intaa ka bacdi de waxa la yiri khayrul kalaami ma qalla wa dalla. hadal waxa ugu fiican ka ugu yare kooban oo wax wanaagsan ku tusa, laakiin hadal badan oo caawa sheegno ficilka aad muujiseen iyo imaatinka xafladda saa u timaadeen baa ayaaba kaamisho dhamaysay yaa kalmaysay oo dhamaysay. marka waxa aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa ilaaha waaxidka ee qaadirka ee qaniga ee casiiska ee ina abuuray cirka abuuray ee maxaan ku raay inaga dhigay dad muslim oo walaala oo ehela ayaynu ku shukriina. la in shakartum waasidanakum. walaalayaal haddii aan u soo daadego suuraddii aan akhriyey ee wal casri suuratu yani barakaysan oo mutakaamila oo cajiiba weeyaan oo sheekheenna sheekh alfiqi ashaaficiyi yaa madhabkeenna shaaficiga sheekhiisi uu yidhi يعني محاكو هذا هدي قرآنك إلهي لقد لها كلية سورة والعصر لكفت ويكون في الله مركا إلهي محين عليه يا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسمك إلهي بركة يسمرك لقب بلا والعصر إن الإنسان لفي خسر بهذا أقاد ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر بلا آذن كأن أبوري كل جي خساره كسوية ويا الدنيا ذن بلارن يعني طبيعتها كلا الدوان كو أبوري هاي بالله كيني حالك صور إلا الذين إلا الذين آمنوا كو إلهي رميي موياني وعملوا عمل فري عمل الصالحة كو الليمد وتواسوا اسكو دردارمي بالحق حقه وتواسوا بالصبر
afartaasaa laga soo reebay afartaasi qofka muslimkii inuu ku sifoobaa loo baahan yahay intuu adduunyada joogo waayo adduunyada maalin buu ka tegayaa maalina wuu yimid maalintaa wuxuu kala tegi lahaa wal casri way xambaarsan marka wacdi iyo waana inoogu furan suuratul casri marka ugu horeysa calaykum bitaqwa allah adduunyada qofku maalin buu yimid maalinna wuu ka tegayaa dee waa kaas maalintuu ka dimid waa lagu farxay maalintuu ka tegayana waa laga naxayaa laakiin maalinta lagu farxo waxa ka daran maalinta uu ka tegayo uu camal saalix inuu kala taga loo baahan yahay marka calaykum bitaqwa allah waliba North America joogtaano de badweyn baxar min al-buhur aynu dhex taaganahay oo intaas oo diimood iyo intaas oo dhaqan kala leh marka calaykum bitaqwa allah calaykum ya bil islam wa inaanay idin la fudaanin kalimada tawxiidka كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله خير الدنيا وما فيها اللي يريدنا شرفت له وضياشنا خيارتنا شرفت له علماء ماشي جوته كل جيبة يعني إلهي قفك إسلام لماذا السية كلمة داوسية لا إله إلا الله محمد رسول الله علماء مركز جي وحيرادين فسرين وإلى خير الدنيا وما فيها وارن واي النبي قال وحي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي اللهم صلوا كروا قال صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي قال وحي عليه الصلاة والسلام ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك أما قبرنا كلام كيدوي ذا كجتة يساي كوا الله إنك نجا وقدم بيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة jannadu garaya kuwa Allah inaga dhiga aaminah marka waalay waxaan idinku waarinayaa waa taasi muhiimadaan soo midnimada waxa weeyaan xaqul muslimi lil muslim weey wa xaqul qarabana ay ku jirto walaalkeen maxamed jazakallahu khayran oo anigu aan bartay 2000 kii markaan imid aan dalka imid isagoo jooga aan imid oo caawa sharaf ii tahay inaan raaxo يا محمد أن قادي قودي ها 2004 رسول الله اسمعين تكبير الله أكبر يعني نكي هبين كاسي أما مالين تاسي محمد فرت ملب كوجلي فرت ملب كي جلي الدوام وقت أيوة شعيل كوي سوما فرت ملب كي جلي وشعيل كوي يا وعلى ما بجرتي وهذا حكمة هو قبل نبى فرت ملك يجلي مو مقلي مركز حاس كيسي إلهي وحلالي مركو لقوري كري قبل نوتش على هذا أيكو دو كفتة يا موت ولا لي فرت ملك يجلي مركز سير ولا واكت ميز كسار الملك ده ويقول ديب تيادنا ميز كسار يا بيت مركز سوري ما كوا هاي صار ربع هذا وهالك قدام marka waxa sharafi oo karaamay oo caawidii sheegaya in maxamed iyo raaxo cabdulqaadir aan ahaa qaadigoodii sheekhoodii isku xalaaleeyay takbiir allahu akbar waa arin cajiib wey aniga marka sharaf gaar ay tahay idinkana karaami iyo cizi bay idin tahay xaqul muslim lil muslim baad gudanaysan marka ehelkeena iyo caruurteena iyo sharafteena iyo karaamadeenna ilaahay baa qadaray inuu maxamed dalkiisa siyaarto إلهي باهية ويعفكو هلكو عرف كيسو يالون بوتاقا مركا هل كان انت إلهي كسيي وكو كرامو ما تعروري يرير بو هايستا هل كان دالكيسي دادكيسي واكهور ريا قف ولي برا ماشي أرساقا ديسو اي تالون بوتشوغا أمبتاقا مركا ولالكين محمد وحان لينا هاي وحي الله كرتي وحكا ويني مجران عيد كالو او وحكا بدلي كرتانا مجرتو وحبذا بانو جعلي إن لا جوجتو أنو أنت وحساب سابينيو أن أنت دعينيو أنا يسوى أن يسوقنا موتها يا لكن هذا وحي الله قريب إنه آمسنا هاي محمدو وحشرف نوع أو كرام نوع أو أنت مقعودي يا أنت كم قارئ أي مات كليهن سو دو أو سي وقال بقى نقرأ جوجتا سي دو وضل كني بتجسا ورمحك في عن marka de waxa la yiri waxyaalaha hoosaa jiro oo
qofka marka la doonayo in la karaameeyana karaamadaasi raggii garanayay iyo gabdhihii garanayay dee way joogaan soo maaha soo in la karaameeyo maaha jasaakum allahu khayran axsana allahu ilaykum intaa ka bacdi waan ducaysanaynaa dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo kii muslimka oo dhanna allaha dhaafo maxamednan waxaan leenahay halkanna ilaahay wixii aad kaga tagtay ee arrina ee saaxiibba ah ee xaaskaaga iyo carruurtaada ugu horreyso iyo ehelkaba reer cabdulqaadir oo dhan allaha xifdiyo adigana safar salaama bilaa nadaama jidku toobiyo qoraxdu dallaalnimo dadku aabbiyo hooyo soo saa ducadu mahayn ducadeennii waalidkeen baa ku ducayn jiray hooyo hee yaa jidku toobiyo qoraxdu dallaalnimo dadkuna aabbiyo hooyo allah kaaga dhigo makhluuqa allah kuu sakhiro intaa ka bacdi dardaaran wixii kale ee ahaa waa lagu siiyey waa lagu siin doonaa odayaal badan baa iga dambeeya ikhyaar badan baa iga dambaysa marka dee leeyahay allahuma rabbana taqabbal minna innaka anta samiicu lcaliim watub calayna ya mawlana innaka anta tawaabu raxiim wahdina wafiqna lilxaqi walaa طariiqi lmustaqiim dee bal aamiin dhaha اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم واهدنا وفقنا والحق ولا طريق المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا الله يا مالك الملك يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الكفار يا رب العالمين الى وذاوين وواحده وعزيزه وعاوس كل الدعاء نغا اقبل محمدنا الى واخريه ادون بوغاجي اهلك يا عرورتا halkan ugu katina allah xifdiyo isaguna meeshuu tago ilaahay ku xifdiyo dalkeenii buu tagayaa ilaahay karaamiye cizi ha saaro isaguna karaamiye cizi ku sabab u noqday wanaag iyo sharaf allah ka dhigo dalkeenii iyo dadkeena ka maqanahay ducaa ul qaa'ib lil qaa'ib la yurid baladi ducada anu ducayna allah wa aqbal dalka allah inoo hagaajiyo muslimkoo dhan allah hagaajiyo bini'aadamka dhib haysta dhibka allah ka qaado soomaali guud ahaan dhib haysta dhibka allah ka qaado Somaliland si gaar caaw ay nagu ducayna dhibka haysta iyo xiqdiga iyo xasadka iyo Allah ka qabtay aamiina iyagana tawfiiq Allah waafajiyo dawladnimada iyo sharafta iyo ciziga karaamada Allah inoo hagaajiyo ya rahmanu ya rahimu irhamna birahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun إمام الشيخ سعد موسى إلهي هكاب المريو دعاء يوانا انتبه waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo caawa hawshu way fara badan tahay dad badan baa halkan ka hadli doona dadkaa ka hadlaya waa inay qaataan oo ay hadalkooda kusoo koobaan duco 2 minute 3 minute hadduu ilaahay idhaahdo intaa kadib looma kala baxayo wax badan baa adhay fanaaniintii baa inoo adhay cid walbo inoo adhay raashinkii baa inoo yaalla ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo gabadha sharfan ee sidan quruxda badan leh inoogu qurxisay oo xagga dambe ku dhumanaysa waa ifraax meecaad alloo sacabtumo maasha allah alloo sacabtumo hadalka kusii raagi mayno axmed maxamed jaamac gabyaaye sidaynu hore u sheegnay nin samafala oo magaaladan Minneapolis dhammaanteed ku aad iyo aad ugu qiimo badan ayuu haddana yahay lana tegi doonaa samafalka uu halkan ka wadayna aqoon-yahan axmed jaamac gabyaaye uu ka wadi doonaa ilaahay ha barakeeyaanu leenahay waxaan kusoo dhawaynayaa sidaan idiin sheegay hadalka 2 daqiiqo way fara badan yihiin waa la isdabagelayaa qoraad tarabi baan kusoo dhawaynayaa oo saaxiib aad u wanaagsan oo ku xusay buuggiisa qaaliga ee uu qoray waxaan leeyahay abwaan tarabi
قرات ربي كسودو الله صعبيو صعب كيالا جوجين الله صعبيو بسم الله السلام عليكم وهذا السلام يا عدك حبايب لولايا وريرد لنا شغاون بك صاير بحي مركا وحنكو خسبر هذا باشا إن عاقو سو قارو runtii aad baan u mahadinayaa xafladan ballaaran quruxda badan rag iyo hablaba ay isku wada yimaadeen maaragtay reer Minnesota waa mahadsantihiin anoo ognaa meelo fog aad ka kala timaadeen waxaan wax ka sii dhaweynaynaa saaxiibkeen Axmed Jaamac Maxamed Gabyaaye fursade oo runtii nin qaali ah oo ugu dheer oo saaxiibanahay oo aanan hadda isdhihi karo malaha ilaa 7 sano ka badan waaba istaqaaneen waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa imaam Sheekh Saad Muuse kelimadiisii waan banaxsanaayo waxaan isleeyay allow yaa lagu yeelay isaga dabadii waxa sheegtay ma taqaanida laakiin dhacdayba imaam Saad waxaan leeyahay waa maasanta kelimadaada noo soo jeesay jazakallahu khayran imaamku xasuuka ay dambeysay بروديقدي لو سوبيناي أبوانكني وينا جارديسي عن كوضا قيب قلني عبارة لبسنا كور بعملنا لنا يا قرا أبوان هدراوي وعن كلا علنا يا قبل إن كان لقى حصي إفراح ميعاد ما سنة أديقنا قال أنت مارتي كقيب قادتي هوشان سيدا ذبا نقول علم رسول الله هذا هاي لبسي لبا جروب بان الصومرة وأنت بدأ وحنا بدلنا السياسيين noo yimaada oo aanu soo dhaweyno laakiin aalaaba way yar tahay qof community ka tirsan waliba reer Minnesota oo magaaladan Twin Cities iyo mataanaha ah ay isugu yimaadaan miideedii ayagoo maartay ku faraxsan qofkaas maartay kaalintiisii uu ku lahaa community ka dhexdiisa marka wuxuu ku tusaysaa walaalkeen Axmed Jaamac inuu yahay nin culus community ku culus meesha u socdana dabcan fariin bay u tahay haday ganacsi tahay haday siyaasad tahay haday degitaan tahayba reer Minnesota nin culus bay soo direen sida loo ogaado waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa kolay Soomaalidu waxay tiraahdaa dad ka badan iyo biyo ka badan ba waa ku hafiyaan anagu hadaan reer Minnesota iyo reer Mareykanba Axmed Jaamac Maxamed waa nugu matalaa allahna maartay nabad geeyo dhulkii maartay dawladda barakeysan ee Somaliland iyo inta ka sii shaysa Puntland ilaa qorax ka soo baxa inta bay isaga nagu matala haduu la yiraahdo kole dhulkii baa inoo balana insha Allah taala waan ku mahadsantii waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Allahumma salli ala Muhammad hogaankii sare ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan داير عبد الرحمن ديري أيوة كسودو وينه كسودو عبد الرحمن صاحبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii wallahi maanta farxad weyn bay ii tahay waan la soo koobi karin waa yar maqnaayo doraad baan imiday markii la ii sheegay waxaan isirnii waxaad soo degdegaysaba mala saaxiibka inaad si dhaweyntiisa aad joogto baa lagu soo dhaweynay horta runtii anigu kama warrami karo waayo waxaan is oran karaa malaha Axmed qofka inta ugu badan ay noloshiisa yaqaaneen baynan ahay dadku malaha waxay moodayaan halkan Minnesota laakiin intaan noolayn oo dhanba waan isag joognay Hargeysa laga bilaabo ilaa imikada caawa halkaan wada joogno bal amarka Ilaahay garan maayo meel kasta oo tago ama aan tagana waa wada nimaadnaa marka caawa markii la igu ninkii waa laamba bixinaya anigu waxaan is adiga laftaaduna waad sii socotaay sii dhaweyntaas malaha ku jirtaabe horta anigu malaha kulli marada saaru wada joognay intaan nooleynba halkan aan imid Minnesota maalintii ku xigtay baan arko shalay baan imid dumbigu yiraahna shalay baan imiday marka waxaan isleeyahay tan kuma kala dambeynaysaa anigu horta waxaan u maleynayaa waan ku daba socdaa halkaasna waan isku arki doonaa marka warwar weyn ma sii qabo runtii Gabyaaye kama warrami karo caawo dhanba igu qaadan kartaa waayo intii u dambeysay 35 sanadood ee u dambeeyayba maalin walba waan wada joognay
de marka waa qiyaasi kartaan runtiina ninkani dee nin communitygeennan iyo magaaladanba aada uga muuqda oo sharaf iyo karaamo kula buu ahaa aniga gaar ahaan runtii wuxuu ii ahaa howlahaa samafalka aada ugu jiro markaan iska mashquulo ninka waxay la socodsiiye buu ahaa ninka qudhe waxay la socodsiiye kolba halkay wax marayaan iyo kolba waxa loo baahan yahay la socodsiinaya buu ahaa markaa horta qofkii bedelayay way nagu adkaanaysaaba inaan helno laakiin waynu iska baadhbaadhi isagana waxaan leeyahay horta anu saaxiib kaama dambaynayo kolley waynu wada joognaa halkaane sii dhaweyn kale laga samayn maayo tanaa sii dhaweynaya wax yar uma kaa dambeyn baan u malaynayaa markaa ilaahay wax walbaa kuu dhib yareeyo wax badan baan isla soo marnay oo halkanaan wada nimnayo sidaa sheekh sacad sheegayo uu lahaa goobjoog baan u ahaa maalintii meherkiisii ninkii meheriye baan ahaa anna markaan halkan imiday maalintii ugu horreyseen iyo qofkii ugu horreysay u sheegay baan ahayo waar gabadhan iyana ku dhaafin ninkii ku yidhi baan ahaa embakayana ku dhaafin marka runtii farxad weyn bay ii tahay aad iyo aadna waan u salaamayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay iyo cidda abaabushay insha allahu sii dhaweyntiisa iyo bixitaankiisana waa ka qayb geli doonaa aniguna kaa dambayn maayo tanaa sii dhaweyna aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiinba cabdiraxmaan allaha barakeeyo saaxiibba isku qaaliyay ahaayeen isku sharfan oo shaarbaha iska dhukada maasha allah siduu sheegayna kala dambayn maayaan xafladoodii caawa loo wada qabanaya mar haddii aan hoggaankii u yeedhay odayaashu way noo yara dambaynayaan waxaan u yeedhayaa hadda injineer maxamed naasir dhoore oo ah xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wadani. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta saaxiibkay malaad wadani buu la jeclaaday inkastuu yahay gudoomiyaha xisbiga oo cid isaga laftigiisa iyo North America haddana maxay toolay halmaan hadal kuma jiro ugu horeyn horta marka ugu horeysa aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aadan idinku soo dhaweynaya intiina ka soo qayb gashay munaasabadan aynu isugu nimi Axmed Jaamac Gabyaaye oo aynu sii sagootinayno haddii Ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay Axmed Jaamac Gabyaaye magaaladu Minnesota gobolkan Minnesota iyo North America intuba ku tabi doonaan mana garanayo anigu runtii qof kaalinta uu ku jiray buuxin kara kama hadlayo oo kaliya marka la yiraahdo jaaliyadda reer Soomaaliland oo kaliya ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa guud ahaanba jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool sida isugu xidhnaayeen Axmed Jaamac Gabyaaye iyo suu qayb laxaad looga qaadan jiray arrimaha bini'aadnimada iyo maxay ahayd toole isku xidhka jaaliyadda iyo dhammaanba howlaha yimaada ee samafalka sidoo qayb qaadan jiray ma garanayo korto qof kale oo buuxin karo jagada buuxin kara niman maalin kula kaftamay markan ogaaday inuu Gabyaaye inuu ka tagaayo niman magaal kula kaftamo waxaan ku hori booskii Gabyaaye adigu ma adino gali wuxuu ugu arigada booska aanu ma gali karaye runtii waxa weeye waa run weeyaan arintaasi cid qaban karta booskaas u malayn maayo inay jirto Gabyaaye anigu waxaan isbaranay 2013 markan magaaladan soo guuray inkastoon hore u aqaanay oo aan ku arkay goobo fagaarayaal la isugu yimaado oo meediyaha inkastaan ku arkay ama magaciisa aan ka maqlay haddana markii ugu horeysay si face to face aan isu aragno oo aan isu baranaa waxay ahayd 2013 laga soo bilaabo 2013 ilaa iyo maanta marba hawl ayuun baan ku jirnay ama mutadawacnimo ha ahaato ama hawlo kale ha ahaatee intaas maalin kaliya taala hawl ku jirana kama maqnaanin hawlan ku jirana kama maqnaanin marka ugu horeysa waxaan leeyahay
anigoo ku hadlaaya afka dadka halkan isugu yimi gabyaayo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shacabka hal mar ha loo tumabiyo gabyaayo waxa weeyaan nin samafala ah oo ka shaqeeya arrimaha samafalka ee uu gabyaayo iyo guddiyada uu ka soo tirsanaa waxa ka mid ah oo ka soo shaqeeyeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin degmooyinka Hargeysa laga qabanayay oo ay ka mid tahay tii ugu dambeysay oo ay ka mid ahayd arrimihii waaheen arrintii kale ee lagu sameynayay Hargeysa Park ninka qaybta ugu weyn ama qaybta lixaad la ka qaatay ee isku dabaridayay jaaliyada halkan degan magaalada Hargeysa markii laga sameeyay Hargeysa Park waxa gabyaayo ee ka shaqeynay degmooyinka uu ka qayb qaatay arrimaha mutadawacnimada waxa ka mid ah degmooyinka Sabawanaag Cadaadley waxa uu ka qayb qaatay oo kale dabadhisitaanka iyo dabafurka ma aha nin ka kooban degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa waxa nin ka qayb qaata arrimo badan oo mutadawacnimo oo ay ka mid yihiin anigu arrimahan ogaa haddaan idin taabto reportka Burco ayaa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa arrimo laga fulinayay gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo arrimo fara badan oo kale oo maxay ahayd tolo mutadawacnimo oo ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad u xasuustaa waxyaabaha aan maxay ahayd si fiican u xasuusto waxa ka mid ah in aniga layla soo hadlay oo dad aan aqaano lagu xidhay magaalada Nairobi ninkii ugu horeysay aan kala tashaday arrintaasi dadka loo furdaamin lahaa gabyaayo ahaa saacada gudahood ayaanu dadka anagoo halka yaani iska daa arrimaha gobolkan oo kaliya iska daay arrimaha ka dhacay xitaa geeska Afrika ama Hargeysa ha ahaato ama maxay ahayd toolay Burco ha ahaato ama ha ahaato Kenya ha ahaato ama Addis Ababa ha ahaato saacada gudahood baan dadkii ku soo daynay oo banaanka ku keenay iyagoo ku jira yaani jeel ku jira maxay ahayd toolay magaalada Nairobi saacada gudahood baan banaanka ku soo dhignay waxa kaloo ka mid ah dad iyaguna xanuunsanayay oo diyaarada laga soo saaray magaalada Hargeysa oo iyagana doonayay baasabooro muddo yar oo kooban ayaanu magaalada Addis Ababa yaani xiriirka uu leeyahay gabyaayo dadka maaragtay Soomaaliyeed iyo jaaliyada iyo firfircoonidiisa iyo kartidiisa muddo yar oo kooban baan ugu soo saarnay baasaboorradii dadkii yaani aad iyo aad u kooban anagoo isticmaalayna channel diblomaasiya oo maaragtay arrimaha noo fududeeyay waxa weeyaan muddada 12 sanadood gabyaayo soo wada shaqeynay waxa weeyaan arrimaha gaarka ah ee maaragtay aan soo taabaneen kasta aan la soo koobi karin waxa uu aad iyo aad u ahaa gabyaaye nin ka warhaya dadka xanuunsanaya soo dhaweynta waxa ka mid ah dadka maxay ahayd toolay safarka ee noo yimaada ama gobolada nagaga yimaada ama maxay ahayd toolay banaanka nagaga yimaada soo dhaweynta dadka siyaasiyiinta madax dhaqameedada aaska waxaas oo dhan qofka koowaad ee marka hawl la qabanayo uu istaaga ayuu ahaa waxa idinku filan gabyaayo ku soo gunaanadaya saaxiibadiisa ay isugu dhow yihiin waa Cabdiraxmaan reer Gabiilaya anigoo ah reer Ceerigaabo isaguna waa ninka maxay tolo reer Hargeysa Cabdiraxmaan oo reer Boorama waad garan kartaa marka nin ballaaran inuu yahay ee aanu ahayn nin magaalo ama nin goboleed aanu ahayn uu yahay nin qaran gabyaayo waxaan leeyahay kun jeer mahadsanid saaxiib ilaahay ku nabad galiyo insha Allah ilaahayna hawlahaaga sida ugu fiican ee ugu fudud ha ku dhameeyo Sheekh Saad baa kugu duceeyay sheekheeni weyna ayaa ducadiisa laga daba oran maaye ilaahay ducada ku rumeeyo baan leeyahay aad iyo aad baan mahadsantiin haddii aan ka gudbo xaggii ragga waxaan rabaa halkan caawa waxayna la fadhidaa kolley waad wada garan doontaan waa buwaanadii hee ku dara idinku ayaan kaaba bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kasta oo caawa madashan fadhiya waxaan ku salaamayaa meeqaamka iyo masabka uu ku fadhiyo anoo idin kala qaadahayn madax iyo mijabo waa salaamantihiin
hooyo iyo walaal iyo waalid iyo aabba iyo adeer iyo culimo iyo saxaafad intaba waxaan leeyahay waa salaamantihiin hadal badan kulli loogama baahnaan u malaynaya caawa madashan kaliya ta waxaynu isugu nimi inaynu walaalkeen Axmed Jaamac Gabyaaye aynu sagootino u ducayno sidoo kalena aynu nidhaahno jidku toobiye qoraxdu dalaalnimo dadku aabiyo hooyo ku noqoy sababta Saint Cloud baan ka imaaday anigu aan hadda deganahay sababtaan intaas aan u imaaday soo socday waxay tahay walaalkay Gabyaaye abaalka uu igu leeyahay taasi oo ahayd markii ugu horeysay aan rabay inaan Minneapolis imaado oo aan barnaamij ku qabto dadkii ugu horeeyay aan la soo xiriiray uu kamid ahaa barnaamijkii ii dhacay ii soo qabanqaabiyay dadka isku keenay isoo dhaweeyay halkaas aad ka dareemi kartaa qof aan ku arkin oo telefoon ka wada hadasheen oo hawshaada galay barnaamijku qabtay kuna soo dhaweeyay waxaynu arki karnaa gobonnimada iyo shakhsiyadda wanaagsan ee ku duugan Gabyaaye taas oo aan laga wada helin dadka marka aan leeyahay taas oo laga wada helin dadka waxaan uga socdaa waxaa jiray boqolaal qof kumanaan qof oo Gabyaaye iiga dhow oo aanu 2 iyo 3 iyo 4 ba ka tirsan karno laakiin isagu marnaba muu eegin waxa kale oo dhan kaliya ta wuxuu eegay qofnimadayda iyo shakhsiyadda aan ahay iyo gabadhnimadayda intaas aan igu soo dhaweeyay waxaan leeyahay walaal waa mahadsan tahay ilaahay muraadkaaga waan macsi lahayn midigtaa ka siiyo ilaahay waxaad ku fikiraysaa ha ku rumeeyo ilaahay meeshaad u socoto ha ku dhib yareeyo ilaahay waxa niyadaada ku jirana ha ku rumeeyo ilaahay awlaadaada iyo xaaskaagana ha ku ilaaliyo hadaad ka tagto hadaad ka haysatana ilaahay nabad qab dhamaantiin haydu ku wada geeyo waa mahadsantihiin dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma sha Allah abwaanada ayaan kabaad bay u mahadsan tahay si sharaf iyo karaamo leh ayay u qeexday inuu ahaa qofkii kaliya ee u huray inuu ku soo dhaweeyo ma sha Allah kala reebi mayno saaxiibadeed farax dayax weerar ku soo dhaw saxabka loo tumo laba kala reebayo bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan كل ذلك جاجاب الله ما أركي حدا دي أركي ويدان عدك يكون بدي يسند دونتين حدا دي أركي إنسان وادي أركي إنسان حلينا سويت إسكاه إن سوق عن كلمة إلى هذا أنا جوا نعوى هاي لكن واحد على هاي حلينا سودوينها سسونها نرشة كم بتهاي إن دنا اللي سويتيو قيمنا أي سودوات Gabyaaye markii aanu Minneapolis ama Minnesota imaneynay wuxuu ku jiray dadkii ugu horeeyay sida fiican oo soo dhaweeyay gaar ahaan barnaamijkii ayaa wuxuu ahaa qofkii kaalinta lixaad ka qaatay ee dhexda u xudhayno ayaa barnaamij fiican u qabsoomo oo u dhaco markii ugu horeysay magaciisa maqlaa waxay ahayd anaga oo Seattle joognayno ayaa la soo hadlay una balan qaaday in wax kasta oo ay u baahan tahay uu sameeyo doono ama uu fulin doono qofka gobonnimadiisa waxa lagu gartaabay Soomaalidu oran jireen jid mala martay jidin mala cuntay ama jabad mala degtay hadda se waxa ku soo biiray qofka wax ma kula qabtay dadku iminka media iska wada yaqaaniin yani warka qofku markiiba uu kugu soo duxayaa ama wad haynaysaa ama wad ogaanaysaa marka warkiisu una soo gaaray isaguna si fiican u guntiga ugu xidhay waxa rajaynayaa sida dadka ugu samafali jiray u soo dhaweyn jiray in isagana meesha uu tago uu soo dhaweyn iyo marxabayn iyo waji furan uu kala kulmo waxa rajaynayaa in waxa uu ku fikirayo ama hamigiisa ah uu rumoobo waxa rajaynayaa in dul soo dhaweeya iyo dad soo dhaweeya uu helo
hooyaday baa waxay aniga mar walba igu ducaysaa ilaahay dadka ha kuu sakhiro oo haa mooye maya kuma tuso waxaan kugu ducaynayaa ducadaas hooyaday igu ducaynaysay ah in ilaahay haa mooyaane aanu maya ku tusin in ilaahay wax khayr qabo kula kulmiyo awlaadaada iyo ehelkaaga iyo adigabana uu idin xafido aad baad u mahadsan tahay waxaan ku leeyahay dhulku toobiye qoraxdu dalaalimo dadku aabiyo hooyo maasha allah habluhuna aad bay u duco wanaagsan ducadooduna hablaha dhulka uma dhacdo marka idinkuna waxa la idinka rabaa dee aamiinta inaad kor u qaadaan weli laydinkama maqlaya aamiinta kor u qaada maasha allah waxaan ku soo dhawaynayaa hadda gudoomiyaha xisbiga khaldami maaye maroraan khaldame gudoomiyaha xisbiga wadani axmed cabdilaahi oo hal iyo laba ka yidhaahda halkan ducadiisa ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب كوباد ما تنتهين هل كان عاوة وحين كسجوتينا ولكن أحمد جامع محمد قبيعي runtii sidaa dadku ka wada dhawaajiyeen Axmed waa nin aad u qiimo badan waa nin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee afka Soomaaliga ku hadashay Minnesota joogta runtii ay tabi doonto marka uu ka tago waa nin inta badan lagu yaqaano inuu yahay nin dhexdhexaad ah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis baa wuxuu ahaa khayr al-umuri awsatuha waa nin arrin kasta oo loola yimaado ku eega si dhexdhexaadnimo haddii khilaaf la xalinayo haddii ummad wanaag maxay hayday laga qayb qaadanayo haddii dhibaato inala soo darista adduunyadu dib ma weyde ee oo geeri timaado uu ka qayb qaato waa runtii ku suntan wanaag nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waxaa laga soo wariyay in uu soo hormaray jinaaso oo deetana nabigu ay asxaabtii fadhiday qaarkood yiraahdeen nin xun buu ahaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam yiri run baad sheegteen haddana sidaasi la mid ah in uu soo maray jinaaso kale la soo mariyay oo ay dadkii ag fadhiyay yiraahdeen asxaabadii ninkaasi nin xun buu ahaa ama nin wanaagsan buu ahaa deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri run baad sheegteen waxaan uga socdaa maadaama oo aynu arki doono marka uu de wadankii ku noqdo inaynu tabi doono dadkeena intaas oo magaranaysaa community-ga gobolka Minnesota ka kala jeegdaana aynu runtii u maqraati furayno waxaad dareemaysaan inuu yahay nin wanaaga lagu sheegayo aanay ahayn uu maxay hayday xafladiisa aynu ka sheegnay inay xaqiiq tahay inuu yahay nin aad u qiimo badan ilaahay waxaan uga baryaynaa in magaalada uu tagayna magaaladiisii uu tagayay inuu ku noqdo nin ummadu ay aad ugu maxay hayday nasato oo wanaag badan ka qayb qaadan doona walaalkay Axmed waxaan leeyahay marar badan oo siyaasadeed waynu wada hadalay hawlo bulshada waynu ka wada hadalay in badanna waynu soo wada hadli doonaayo adduunyadu imika waa xaafad oo telefoonkaas la isku jiraayo every second halkana waa la wada joogaa halkana waa la wada joogaa waynu kala warhayn doonaa dhamaantiina waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsanyahay gudoomiyuhu fari kama qodna arrimaha caawa waxaan ku soo dhawaynayaa uu isgaranayaa baan u malaynayaa uu yara gagabanayaa gudoomiye hore waad iska garan kartaan baan u malaynayaa gudoomiye hore jaaliyadda Somaliland waa Sandheere wey Sandheere ku soo dhow saxabka kelmadiisa hal iyo laba halkan ka yiraahdo horta waan ay gaadayo waxaan salahaa meeshaad ugu yartahay isgaabi laakiin haddana xafladan aan caawa joogno waxaan cidna isu gaabin karayn cidna isku qarin karayn nin qaali ah walaalkeen ah maxaa gabayaaye oo aanu ka soo wada shaqaynay ha noqoto community ha noqoto dadka Soomaalinimo wixii loo qabanayo ha noqoto tornimo wax aanu ka soo qayb gelin aanay jirin walaalkeen waxaan leeyahay waan ugu tabi doonaa nin qaariya ayaa naga tagaya laakiin
waxaan ku faraxsannahay inuu inoo tegayo meel kale oo intuu innaga inoo qabtay in uu ka qaban doono aad iyo aad baan walaalkay u sagootiyayaa waxaana leeyahay gabyaaye wigana misiyo waan qaanaya aad baan idin salaamaya dhammaantiin dadka sharafta leh halka ka soo qayb galay waan wada salaamaya ismaaciil sandheere aad buu mahadsan yahay waxaan rabaa hadda inaan u yeedho ugaaska marka ugaaska ku soo dhaweynaya ugaas ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدشان قروح بدن يدد كان هالدور كيسو يمد هي مناسبة قالقة وحنجي سوق بني صلاة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تكدب هذه مناسبة دا والله هذلي يوجد دا إلى هاي muhiimaduna waxay tahay ninka odayga ah ee inagu qaaliga Axmed Maxamed Jaamac Gabyaaye oo runtii markhaatiga dee u dhacay aan mid aan la koobi karin uu yahay ahna meelo qura laga yabaan maqlaye waxa jira qof kiil walba gala hadday samafal tahay iyo haddii xagga dhaqankii odayeynta loo kaco iyo hadday xagga maxaa ku idhahdayay siyaasadda tahay iyo hadday xagga ganacsiga tahay kiiluu ka maran yahayba ma jiro yacni dhinacii loo eegaba waa nin gelaya weeye ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waan si ballaadhan baan u sagootinaynaa ugu sii ducaynaynaa waxaan se ka horraysiinayaa gabyaayo waxaan leenahay dee haddaad naga tagtay oo ummaddii sidan ay arrinkeedu yahay oo sidan looga hadlayo waxtarkaagii dee cid sii anshaar cid aad nagaga tagto cid farta noogu fiiq halkaagii noo gasha kelmaddaasaan ku odhanayaa insha allahu tacaala taasi waa intaa weeye waxaanu adig iyo faamiligaagaba aanu leenahay iyo qoyskaagaba ilaahay subxaana wa tacaala safarka u baxaysaan ilaahay idinku nabadgeliyo halkii aad tagtaanna ilaahay subxaana wa tacaala wanaag idinla kulmiyo waxaan ilaahay idin weydiinaynaa in wanaagga aad kasbateen iyo samafalka iyo khayrka aad geysateenna ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro halka aad tagtaanna kuwa ku barakoowa inaad noqotaan runtii dee ninka waynu sugooteen oo si wada inuu soo noqon doono lagama hadlin oo mar dambe soo noqon doonee laysma weydiine waxaanu leenahay halkaa tegaysana allah kugu barakeeyo safarkana allah kuu fududeeyo runtii anigu caawa hawlo kalaan lahaa markaan ogaaday inuu tegayo waxaan isiri war idinkoon is arag oo aanad sii macasalaamaynin maaragtay hawlahan kaloo dhan dayso aad iyo aad baanu أحمد ولا الكوسو دويننا يعني كوسو وتينا دعي وكرامة نكراعيننا دت كنا مخاطي وعم بيكوفرينه إنجنير أحمد هذا الكول هاي نبي عليه الصلاة والسلام يعني دت كل سومري نبي يقولي أنتم شهداء في الأرض وحتيهين مرخاتيجا دنيا مركا مرخاتي وعم بكود عيلها مرخاتيجا كود عي إلهي سبحانه وتعالى كوا قبله آخردي يدون كمان لها كوا جاتيو أريد يوبت كان الله كو حفتيو طريقة أدمر الله سبحانه وتعالى كو سهله لما أنت بنت نسوت من إلهي وحنا نو دينيا إلهي سبحانه وتعالى ما تكن السجون إلهي نسوق هذا بدافو إلهينا حولها أمرها ينو هجاتيو وصلى الله على نبينا السلام عليكم. وهذا النص قلعي عبد الدايسنة وأبو تقنان oo ayaan kaabo odageediya saxabka u tuba una ordaya waa xidhibaan u ordaya waqtiga soo socda kulle codna way idinka dooni doonaa sidaa ula socda waa ninka halkaa fadhiya ciddii hore u aragtayna way aragtay ciddii kalena hadda aragto waxaan u yeedhi doonaa anwar ku soo dhawow hal iyo laba qofka marka la soo dhaweynayo sacabkana loo raaciyo si uu dhiirado
الله يدي بركيه الله يدي كفر حيه ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta dhammaantiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin imaashada u timaadeen inaan walaalkeen sii dhaweyno. idinka Minnesota qura ka hadlaysaan bal aniga ilaa Hargeysa ka hadlaya iyo meesha Hargeysa la joognay. waxaan xusuustaa aniga oo yar oo markaan u soconay iskuulka uu iga si tallaabin jiray dooxa ayaan xusuustaa. marka taas waxay ku tusaysaa horta inuu iga weynaa markii aan ka baxay uu ka soo baxay North America uu imanayay Soomaaliya ninkii soo sabootiyaan ahaa oo uu soo baxay North America haddana waxay noqonaysaa inaan sii sabootiyo marka uu Hargeysa iyo wadankii sii aadayo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu meel kasta sidoo wax ugu qabto dadka wax ugu qabto tolka wax ugu qabto wadanka wax ugu qabto Ilaahay inuu ajarkaas siiyo dhammaantiis. midda kalena maanta arintan u nimid waxay ahayd in aan walaalkeen sabootino inagoo ku sii sabootinayna wax kasta loo baahan yahay oo markaas waxaan sameynaynaa aniga iyo Cabdiqani ayaa kole intiina badan insha Allah la soo xiriiri doona wixii loo baahdo iyo sidii arinta loo qabanayo. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu safarkiisa uu fududeeyo. dhammaantiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin imaashaha timaadeen maanta. Assalaamu calaykum. waxaan hadda ku soo dhaweynayaa gudoomiye direed oo caawayna la jooga Master Saleebaan ku soo dhawow saxabka loo tumo ilaa marna dir baynu hayne ma sha Allah. صعب السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. مقعيق وسليمان أحمد عبد الرحمن وحكلوا الرعية قدومي عبد الرحمن لكن هذا أورنو أنا ونرى كونفريت بانهاي عاون هالكن وحن لينا وكلي إني غير سومالنا إنشوغاني دي كونفورت وضبان بقى كم وقت دايسنا وجدانو ديق درجات وجدانو أنا قرر ودي جدان هل بانقريا هالكن عاون وحنقريا الله بركة أحمد جامع قبياي كوميونيتي كان أودا دقاقايو مركل إده غير سومالي لان أما جمهورية بركة سنة سومالي لان قف كوع مركل إده قبياي يبوه الرئي أنا نين رأي كونفورا مركان غير سومالي لان دون يو قبياي يا أدر سعد روبلة يو قدومي عبد الرحمن كورنيلكا ayaan ka dooni lahaa reer Soomaaliland haddaan doonayo inaan dadka la xiriiro waxa ay ku tusaysaa marka gabayay wali aniga abaal badan bi igu leeyahay xalfad aan reer kayaga inaad taqaanaan ma ogiyo reer marko aan u sameeynay gacan libaax buu igala qaatay marka waa ku mahadsan yahay maanta abaal marin baan ku siinayaa walaal qaali dalkii nabad Allah ha kugu geeyo waxaan ogahay dalkii haddaad tagtidna insha Allah maadaama halkan muddo badan aad joogtay inaad ayada nafteeda iska bedel wax ka bedeli doontid waynu soo nasoconnaa anigana waxaan codsanayaa reer Soomaaliland waan u soo socdaay qurbaha waan ka tagayaa Soomaaliland baan u soo guurayaa waxaan idinka codsanayaa idinkana dawladdiini dadkiini shacabkiini iyo madaxdiina inaad ugu soo dhaweysaan insha Allah. Assalaamu calaykum. waxay gaba xusuusina caawa waxaan nidhi waa habeen sagootina oo walaalkii la sagootinayo marka kolley hawlaha sagootintana waad iska taqaanaan waxaad la xidhiidhi doontaan oo aan idiin soo qori doonaa walaalkiin Cabdiqani. inta haddaan ku dhaafo waxaan soo dhaweynayaa caaqil ku soo dhawow. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan u mahadnaqayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha leh ee aanu ka soo qayb galnay dhammaanteen. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay aad baan ugu mahadnaqayaa. soomaali ayaynu dhammaanteen nahay aynu sii kala yaro ahaano Somaliland iyo aynu sii yaro kala baxno
laakiin haddana dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay martida ah annagu bacdamaaba ehelkii aanu nahay Gabyaaye Maxamed Jaamac Axmed Gabyaaye aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay Soomaalida iyo inta kaleba waxaan filayaa aad iyo aad baa Gabyaaye arrinkiisa dee looga hadlay waana la iga badiyaa aniga sababtoo anigu dhawaan baan imi Mareykan laakiin se dadkii halkan joogay ee ay dee wada hawl galeen aad iyo aad bay dee uga warrameen wanaagiisa iyo qiimihiisana dee waxaa tusaale u ah dadka ka soo qayb galay ee haldoorka dadkan ka warramaya wixii uu qaban jiray iyo wuxuu tari jiray nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa sheekh weyn la fadhiyaa qofka dadka ugu waxtarka badan ayaa ugu fiican waxtarka bini'aadmiga dadka tara waa dadka qiimaha leh marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin isagana waa u ducaynaynaa sidaa loogu duceeyey ducadaa la maray ee ah jidku toobiye qoraxdu dalaalimo dadku aabiyo hooyo ayaynu ugu ducaynaynaa haddii alla yidhaahdo Soomaaliya Somaliland waa laga doonayaa inuu haddii alla yidhaahdo markuu tago uu hawlihii uu halkan ka waday qaar la mid oo ka fara badan ka bilaabo ayaynu sugaynaa insha Allah annaguna waa la shaqayn doonaa inteeda halkan joogtaa waxaan aad ugu rajo weynahay inuu hay'ad samayn doono haddii alla yidhaahdo reerkiisa halkan joogana waa u ducaynaynaa ilaahay inuu halkan ku karaameeyo ku sharfo oo halkan ay khayr badan ka helaan isaguna uu khayr badan xaggaa kala kulmo ayaanu ugu ducaynaynaa soo noqod wanaagsan markuu doonana inuu yimaado ilaahay baan uga baryaynaa in la fasaxo oo uu inoo iman karo yimaado marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa goorahan bayna la joogay fanaanadeennii weyneyd Rodawan u sacbiya maasha Allah oo caawa sagootinta nagala soo qayb gashay isagiyo abwaankeenii ilka casab weyna la jooga marka loo sacbiyo labadaba maasha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa hadda oday Rashiid oo hal iyo laba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بردي سلامي تتكين وقروح البضاني هالكين من الرقي يطمر بالله أنا هرتا صاحب دو بيجتي أو إدعم كوب تلانا كرني هبين كي لبضة قفة ودم بيوض على متدور يطمح السنوات أيام واحد ما ننسى حجر الله مسمى الله مركاين الدعاء بدن بانو تريا إن شاء الله إلى هي جد كتوبية دال الشاقي ورحل الضلالمه سو نقشو ونكسن أيام إلهي كرجين يا آدي آدنا وادي سلام يا هذا بنيكي بدل الهوين لصهر أنا قبل أي قرط عاركمي دوين بري بقى أنا وصدق حننا أيام نقول ورياه نين وضيوه مقعابي ماي وأنا واحد دوني قصعد على بوراي كي أنا قل ما هينه أنت نسوي بنقبل أي إنه كعلى مسارة إنه سلطان كدقنا marka ninkii baa dib yara fariisto yiri warniyo aad ma aqaano marka saari war aniga aqaani marka laakiin ninkii la bari dhaweyd ila saarno yiri warniyo barigaada iga hagaagsanaaday ilaahay ha nabad geliyo aad iyo aadna waan idin wada salaamay laba nin oo saaxiibana halka fadhiyo aan bari ay sarkina waan salaamaya yaasiin basharax iyo absalaam oo inuu sarkeenna intayna kala tigi Allah yسلمكم marxaba bye bye صعب كي مش حردي ولي ما إنه والله وردان وأنا إنه شعب كي مش حردي دعاء ما إنه سمعنا إن كل وان دريمي كرا إن ديرت عشان لكن فنانتني بمردو إنه سوق عيسى إن واحد كسر دوين يا هذا وهالي الله وين وردنا عبد حسن كسر دو عبد حسن بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي نقرت شرفت له هذه أبو مهسنتي سيدا وعنا ونكسن حفلة سوت سكاه أنا سمعنا أحمد محمد جامع قبيعي آدي أدوغ ما سنتين وحنا نقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ده قبيعي يورت واني فربضان مركا أنا وشقب فربضان ما نسوه ده قبرنا أو سمعت لسا وسودوينا وانا نندالين وندبعين ودتك السقومي دي هاي
anuu de family baan garanaya isku family baan ila hargeysaan garanaya waa dhalinyaradi naga yarayd marka anaga horta personally Cabdi Xasan ahaan waxa weeye aniga gacan baa maqan bardugabay maqan yahay way hawl fara badan oo de community gu hayay ayaa u soo baxsanaysa marka ninkaas aad baan u tabiyay ninkii bedel lahaa baan raadinaya bal iska dhaxbaara waa nin international waa nin community oo kale yahay community Soomaalidana ku dhex jira meel walba ka muuqda aad baa loo tabi doonaa inaga muu tagin qalbigiisa iyo qulubtiisa way nala joogan martii reerkiisa iyo carruurtiisa deena la joogan waxaan ugu duceynaynaa inuu noo soo noqdo oo dib loogu soo noqoto gabayaayo Ilaahay wax walba ku fudeeyo arrimaaga hoosna waa la socdaa in Ilaahay bisikana u mara faatixada oo aqriyay arrimaha hoos socda Ilaahay inuu u hagaajiyo u mara faatixada u mara waa mahadsantiin aad baan islaamay Cabdi Xasan aad buu mahadsan yahay runtiina taariikh badan buu inooga sheegay wuxuu yidhi kulley aniga de baalashi lagu dulay baa gacan baa go'an qayb baa iga baxday buu yidhi marka kulley bedelkiisa de waa laydiin bandhigay ciddii bedeli lahayday waydi sugaysaa taas waa taa guntiga gabagabadii intaan meelo kale u gelin bal hadda waxaan ku soo dhaweynayaa aqoon-yahan Axmed Jaamac Maxamed Gabyaaye Bursade hallo sarakaco u sarakaca saxabka u sarakaca ma sha Allah ما شاء الله ورتا iska fadhiista kulligiinba aad iyo aad baad u mahadsantihiin gaaladu speechlessba la odhan jiray markuu qofku hadalku ka soo bixi waayo xaqiiqatan waxaad moodaa markii hore caadi baan ahaan soo gelayay meesha laakiin markaan arkay dad aad iyo aad iigu qiimo badan kulligood oo madasha fadhiya waxay noqotay inaan emotional noqdo runtii waan idiga mahadcelinayaa marka ugu horeysa run ahaantii anigoo ah Gabyaaye Maxamed Jaamac Bursade marka ugu horeysa aad iyo aad baan idiga mahadcelinayaa quruxda iyo wanaagga aad samayseen igala soo qayb gasheen igu sii sabootideen waxaad i tusteen runtii wax dareenkayga iyo shucuurtayda sare u qaada ilaahay baana abaalka iyo wanaagga waxaan xusi doonaa afar qodob mid waa ta Soomaalinimada runtii walow anigu aan reer Somaliland ahay dhashay ku barbaaray Somalilandnimadaydu marnaba cidna uga gabamaayo cidna uga habramaayo laakiin waxaan ogahay Soomaalinimadu ama shan gobol ee Soomaaliyeed ama Djibouti ka kaala ama kilinka ka kaala ama Soomaaliya ka kaalay ama Somaliland ka kaalay ama NFD ka kaalay waxaynu wadaagnaa waxa ay tahay tirida kaliya waa Soomaalinimo marka in cidna lagu riixo foolxumo bay noqonaysaa in muxuu ahaay qofka dadka fikirkiisa iyo arrinkiisa marnaba lagu riixo ma jiro aan soo dago Minneapolis state-ka muddo dheer baan deganaa 20 sanadooda iyo in ka badan xaqiiqatan dadka la dhiilgareynayay la dhaqmay muddada dheer waxa ay Soomaalinimo ayaan markaa mar walba ku aan qaaday laakiin ayaamahan dambe waxaad aragnay masaajidda aan dhisnay baa jiray xilliga la doonayay donation loo guro waanu ka qayb qaadanay business leedii ugu horeysay ee magaaladan business ka furay ayaan ka mid ahaa marka masaajidada waxaan u dhisaynay waxay ahayd in ubadka Soomaaliyeed ee ku dhasha halkan si aanay quraan waayin ayay ujeedadaan u soconay taasay xaqiiqatan anagoo u arkayna dadkaasi in community-ga magaca Soomaaliyeed Lebanon babri orowaan deganay ayaa Lebananiintu waa Kristaan waana Muslim dabadeetana
mid Lubnaaniyaan weydiiyo waxaan ku irniyo waa maxay dee mid keliyaa tihin kiristaankiin iyo muslimkiin waddankii marka la joogo Lubnaan ah dawad kala qaybsantiin wuxuu yidhi kol haddaanu bannaanka soo baxnay mid qura baanu marka macnaha aan uga socdaa waxay tahay meeshaad doonto Soomaaliya ka kaalayo Soomaalinimadaadu inay guurto maaha inaad ku ixtiraamto ka Somaliland ka yimi ka Soomaaliya ka yimi meesha doonaba ha ka yimaado shanta gobol wadaadada culimada magaaladan joogta waxay la soo baxday wax aan hore diintana lagu arag maalin waxaan ku tukanayay ummatul islaam xaqiiqatan I don't know Mustafa Girin oo jooga caawa jimca ay ahayd waa salaadan ku jirnay dabadeetana waxa la bilaabay in sheekadan debada iyo waxaas wanaasaan ku waryaarahan meesha cibaadaan u nimiyay umaanu iman politics masaajidadii baa xataa gashay sheekadii politics waana ayaan dar in culimadu ay ka dheeraato ayaan u soo jeedinayaa inaanay kul milmil siyaasadan isgadiyaysa Soomaali ama gobolkay doontaba ka socotay inaanay iyagu waa inay noqdaan mustambeedkii lagu soo laaban lahaa ummadda Soomaaliyeedna ku soo laaban lahaa ay noqdaan inay diinta iyo xilliga aan ku fikiraynay aan lahayn masaajidda loo dhiso donation ka u bixinaynay inay noqoto meel maanta masaajidadii dad gooniya laga soo ma garanaysaa la habaaro maaha xaqiiqatan taana ka waantoobaan baan leeyahay waxaan soo degayaa runtii waxaan muddada dheer bartay dad aad iyo aad u wanaagsan u qiimo badan waxaan tabayaa marka wadankii tago dee kulley la qabsan maayo because waxaan ogay muddo dheer baa ka soo maqnaa dadkii laakiin kala duwanaa ee gobolada kale ka yimi ee Soomaaliyeed ee asxaabta ahayn ee ilaa caawa soo wacaya text message-kii soo diray intii aanu ambabax u diyaar garoobayay ambabaxayga runtii qalbigii qulubtayda iyo qalbigayga waxay kaga tegayaan raad aad iyo aad u culus one family baan ahayn ummadda in laga qayb qaato anigu muddo dheer baan samafalkan waday dad badan oo halkan fadhiya iyo qaar kaloo wadooyinka saaran iyo qaar wali waqtigii shaqo iyo adduun dawaayo adeegii Mareykanka laakiin markaanu niraahno waxaasaynu sameeynaa nala garab galay hadday noqolay dhaamo la qodo hadday noqon lahayd dadka masaakiinta la afrinaya nooc walay tahayba dadka Soomaaliyeed runtii ee state kan degan qayb weyn bay ka qaadanayeen qayb weyn waan uga mahadnaqayaa ilaahayna miisaanka xasanaadka hawsaa midda runtii aan xusayaa abwaanadii qaaliga runtii ayaan kaaba waa dhab intii ay sheegtay ayaan kaaba dee runtii gabayadeedu baan maqli jiray ma fahamtay warda xaashi ninkeeda iyo yaa ayaan maqli jiray markii ay la soo hadashay runtii waxay noqotay dee qof abwaanada welibana gabadha cabdisalaan caato halkan fadhiya runtii maalintii 1st of July ayaan ku hor cabdisalaan ayaan kaaba number 1 ka geli leeska waliisku waxay ma shaqeynayse meeshan 1st July di Soomaalinimo taalo dee qaybteedii baanu leenahay miyaad aragtay reer Hargeysa hadlaya ama ka hadlaya xaq bay u leedahay ku qor waa ka cabdisalaan loo fadhiyaa xaqiiqatan cabdisalaan wuxuu ka dhigay iyadoo inta ayaan runtii wuxuu ka dhigay inay number 1 noqdaan oo meelasha ka hadlaan halkii la isku yimid waana uga mahadnaqayaa cabdisalaan u fadhiya sayigeedii baa fadhiya runtii ku rajo weyn inuu xilmaan noqdo dee waan u ducaynayaa ducadaadii ducaynayseen anigu qayb baan isaga xaggiisa yaa in baan uga qadhiirayaa marka waxaan mar labaad aan xusayaa runtii waayuhu maalinba wacan qofkuna inuu qadarka ku sabraa waa muhiim
آدي آد بأمهنت نبا هو نودو دولة يرلو لتري ونوابتها أيا وحولي أنا يانا وحيالا ذا كبئين واحد يقرأ نونا كعيش مربوة يا حرية أنا يانا وحيالا ذا كبئين واحد يقرأ وقتي اسبدلي حقي كيمي كنتي وحناديا حاجيدي ذا يو عرورتي ذا حمسي يو كنتي قرب آديا دوين أي سكيسو قرب تاجن أجين غير عبد القادر ورنتي يبو سبور آديا دوين هبينا أنا نتبين وقت جايز بدلي runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa faamligayga dhammaan asxaabtaydii qaaliga ah oo iyaga la-aantood marnaba aanay suurto gasheen waayahana igala soo dabaashay waan uga mahadcelinayaa qof mid cabdiraxmaan wuxuu ka tegay inaan maxiiskiisii ahaa orowa moogta intii kale o dhan wuu sheegay laakiin maxiiskiisii wuu qariyay hoos buu dhigay awarnatiisa waa soo dhaweynaya awarntiisa wuu naga yaraa soo maad arag laakiin dee nin yaroo fircoon buu ahaa aad iyo aad u fircoon waana ragga bisnisyada ugu waaweyn magaalada leh maanta ilaahayna u barakeeyo ayaan leeyahay sheekh sacad ugaaskayga runtii sheekh sacad waa runtiisa anigii dee maalintaa nagu tufay anigii cabdiqanina maxiiskaygiina halkaasuu fadhiyaa maxiiskaygu wuu isqaranayaa yaa waa joogaa cabdiqanina marka alxamdulilah dad aada u qiimo badan markaad ka tegayso waxaad dareemaysaa inay waaxi ku maqanta laakiin waan isla soo xiriiraynaa waad ku mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga tegayaa aynu soomaalinimada u badkeen aynu isdugsan oo xaflad wal noocay doontaba ahaatee iyo si magacay doontaba ula baxdo laakiin waxaa ka qiimo badan barashada iyo aqoonta runtii ayaa ka qiimo badan marka taanyaan la ilaamin anuu dardaarankaygu wuxuu yahay waxna aynu kala yeelan midna aynu wada noqon ma xuma taada waa kula wadayaa tayda ila wad eegata taada waa kula wadayaa tayda ila wad ayay tahay muhiimaddu ilaahay kulligeen hayna saaro hayna waafajiyo kolay rabadan baa soo socota shabcaan baa lagu jiraa ilaahay khayrkeeda haynagu sima bisha rabadaan waan idii ducaynayaa bisha rabadaan ilaahay nagu simo kuwa waajibka iyo guta ilaahay naga dhigo anugu waxaan idiga tegayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ilaabay walaashayda qaaliga ah xawalul yuusuf cartan oo ilaa iyo ohaayo iga soo socdaashay xaqiiqatan markaa kulligiinba waan idinga salaamayaa waan idin jecelahay sidaa dee kalgacal kale aad ii tusteenna waa runtii qalbi lubtaydaan ku haynaya aad iyo aad baan mahadsantiin raalli ahaada xabsaay maxaad leedahay inantaydii qaaliga ayd baa halkaa fadhida iyo hanadna wakaa ya xanaanna waa halkaasay taagan tahay dee barasho wanaagsan faami weyn oo culus ayaan kolley ka tegayaa gacan bay ku jiraan bira dee cabdisalaanna halkaas soo fadhiyaa kabadha iyo cabdishakuurba isilaaliya markaa aad iyo aad isku ilaaliya waan islaamayaa kulligiinba rashiid waa runta qaali baa tahay nin aan mar walba la tashado tallaabada qaadayaad ahayd dee cabdi xasanna waa sheegay laakiin nin baan anigu dee isleeyahay war ninkaas ayaan taajka saaraya cabdi xasanow ninkaasina runtii dee wuu muuqdaa marka kolay laba nin baa isku haysta positionko labadaa nin midunbaa soo magacaabi doona haddii aan la yidhaha aad iyo aad baan idiin salaamayaa maxamed ilka case runtii dadka xafladan dee dhabarka u ritay inay suurto gasho ubax kornaylka
محمد عاقل عبد محمد ناصر runtii dee walaalkay cabdiqani waa kaalkaa taagan kelmadiisa ahayd in la siiyo mixiiskaygii soo wada kornay yaa marka aad iyo aad baan dhammaantiin baa idiin salaamayaa saaxiibkayga qaaliga ka marada aad iyo aad runtii waa dee hargeysa iskugu iman haddii la yidhaahdo cabdisalaan hereeri baa aad kaaga sheekeeyen waa soo socotaa yaa soo diyaar garow yaa madal aad degto iyo meel aad degto waa lagu siinaa marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa kulligiin almaadsatiin صعب ما شاء الله صعبك الله سركع صعبك وسركع صعب ما شاء الله صعبك ان عدد ما سنتي سكفريستا ان وحويان عاوة سي كل يلا ابو علي يعني وحو موجي ويدين موجي درين كيسا kalgacalku idiin qabo ayuu idiin muujiyey idinkuna markaa waa inaad dee kalgacal sidaas oo kale aad isku muujisaan inteenna wada joogta waxaan ku soo dhawaynayaa hadda fanaanadeennii weyneyd Roodo Wacan ku soo dhawow waxaanu yara qaadanaynaa break baynu yara qaadanaynaa Roodo ku soo dhawow هذا اللي هو حكوتشرا وزير كيني اجس وزير اسمه سهرديد عداني عاديات صعب وقلتما نلمت جوجو سويدن بوتشوغا هدو اللي كسوق لي عداني السلام عليكم وعليكم مقليا ومديون وافد إذا سودو سبيكر نو صارتها حفلتي بقى محمد شامل سلام يا ابو صديق دمان dadkoo dhan waan salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh marka ugu horeysaan u mahadnaqaynaa idinkan halka isugu keenay anigana igu soo sameeyaan waqtigan idin soo inoo caafimaad qabanayaan soo wada hadaleyna dhowr kulan meel isu jirna aad iyo aad baan u jeclaa بسم الله كريم هنا تشوفوا حفلته لكن الله كما دغنو هولا حسب قوون ايانو بحي سوودن بان كسغنahay hadana ila Britain Denmark baan u bixi doonaa ka bacdina Norway inta Ramadan ka hadhay marka aad iyo aad baan u daneynayay laakiin waqtigii baa isu kan saamix waayay waxa jabana fursadana ama gabi ayaa u wada taqaaniin oo noqday oo reer Minnesota runtii qaali ku ah anigu qof si fiican aan u aqaan weey waxaan ilaahay ka baryay in ilaahay reerkiisina waa halka la jooga iyo family-giisi waqti badan inaanu inaga maqnaan doonin baan ilaahay ka baryayaa nolosha ilaahay baa hawlaha wada wax walbana khayrku baa laga eegayo ilaahay khayr buu ka dhigayaa laakiin waanu miskarayn doonaa waanu tabi doonaa maxamed jaamac intii taqaanay hawlaha iyo sida uu haday hawlo badan uu ka hayay Minnesota baa loo tabi doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu meelaha la meeshii u tagaba ilaahay ku xafido family-gana dawaanu wada joognaa isagana maxaan ku dhahdaa maanta inkastoo la kala maqan yahay haddana waynaga meel walba ka wada hadlayna oo waynu wada joogi doonaa waxaan intiina halkaa maanta ku sharaftay ee isugu timina waxaan ilaahay uga baryayaa bil ramadaanna way soo socotaay inuu dhammaantiin wada xafido waanan idinka mahadnaqayaa maxamedow adigana insha allah waynu isku soo gaari baan filayaa haddii la yidhaaha inta aan tegin waynuna sii wada hadli doonaa aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum aad iyo aad baad mahadsantahay wasiir waad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم شالية قرحة بدن لها كل سبوت آديات بانرتو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد جامع أنا كان ولا على كنا هي جامع أنا روضة جامع بانا ما بقوا جايين بنيو مركب حليه هي ولكن قبل يو وحليه ولا سفر سلامة
ilaahay jidka toobiyaha kaaga dhigo meel kastoo tagtaba ilaahay kugu nabadgeliyo wallahi aniga aad iyo aad baan uga naxay tegitaankaad naga tegayso laakiin inagama fog laftigeenu way dhowday meesha dara joogtaa وانا نكوغو إيمان دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم وانا نكسو لوين دونا وحنا لي ولا سفر سلامة إلهي أكون نبت كلمة ملك تجبت عادًا والسلام مر هدي روض هذا شان نوان هذا يا لبض النين ذلك إنسان عبد الرحمن يجب ياي وحنا حسوستا أروسكي عبد الرحمن ورتوان شوقي أنا قلفتي كم مقرين من حيسنا وحكا حاجة ياي waxaa naga jabay gaarigii caruuska aan ku qaadi lahayn ayaa naga jabay gaarigaana lagu qaaday caruuskii way maqlayaan maxamed waxaan leeyahay in dooraan soo wada joognay waqti badan soo wada qaadanay waa nin qaaliya maxamed idinkaana ka markhaatiya oo wax kale ku dari maayo waxaan leeyahay ilaahay safarkaaga aad galayso ilaahay kuu sakhiro may anigu weyn baan weyn otawada إلهي هبركيو محمد وان قاليا إلهي بل وبرينا إنه مال ولا وتجمع إنه إلهي وسخيره سدا ودتك وعاويو ودتك وسودويو أيان إلهي كعبرينا إنه إلهي حقي سر لقى سودويو
Welcome.